هذا أدوه هنا ويدا المهاجي ولا جا قاعد الطنا المهاجي وحلو بهاي لما حدا جارسيسو إنه كنت على هذا أمر كاجا هالحلال وقاطه لكن محاكه الرية رسول كني منا مولا كني رسول كني منا مولا كني مكو كدشو مدينة نواو هجرودي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما وعملا ووجهي لبعض aynu kaga sheekeynay barbaarinta caruurta qaybtii hore waxaan kaga soo warranay barbaarinta caruurta qaybtana insha Allah waxaan kaga sheekeyn doonaa barbaarinta iyo hagaajinta iyo toosinta dhalinyarada laga bilaabo markuu gaaro 12 jir ilaa uu noqonayo qof majuura oo kaalin gala waalidow ilmahaagu waajiba ka saaran ama ha noqdo caruur ama ha noqdo qof muraahiqa oo teenager si aad ugu intifaacad uga baahantay adduun iyo aakhiraba waa inaad gashataa wax weeyaan wax muhiima oo adiga wax ku kordhinaya ilmuhu waa weel walba wixii lagu shubo baana ka soo baxa weel walba wixii lagu shubo ayuunba ka soo baxa waa inaad ogaataa ilmahaaga markaad si fiican u barbaaranayso waxaad gudanaysaa waajib Ilaahay ku saaray subhanahu wa ta'ala dabcan barnaamijkeennii hore ama xalaqaadkii hore inuu kaga sheekeynay barbaarinta caruurta waxaanu la hadlaynaa waalidkoon laakiin ta waalidkana waan la hadlaynaa dhalinyarada naftoodana waan la hadlaynaa waxaad arkaysaa waalid badan oo cabanaya oo ka cabanaya caruurtooda oo la daala dhacaya ilmihiisi oo koornay ilmihii waan afkaran laay dabcan daala dhaca waxa sabab ah in waalidku aanu fahansanayn marxaladan ilmuhu marayo jir ahaan aqli ahaan caatifad ahaan hab dhaqan ahaanba taas waxay keenaysaa in waalidku uu hagaajin kari waayo ama toosin kari waayo qaab dhaqankii ilmihiisa ula dhaqmi lahaa inan iyo inanba ku noqdo waxaan shaki ku jirin mushkilaadka caruurtaas ay sameynayaan wayagii waalidku isla fahmi laayihiin waalidku ay ka qaylinayaan inay sabab u tahay oo waliba sababta ugu weyn ay tahay gaabis ku jira labada waalid qaabka ilmaha ula macaamili lahaayeen waxa loo baahan yahay waalidu inaad ogaato ilmuhu 12 jir markuu soo gaaro in isbedel ku imanayo oo kana baxay marxaladii caruurnimada marxalada tufuula inuu ka baxay oo noqonayo qof qaangaara ama qaangaarkii ku dhow marka qaabka ula macaamili jirtay waa in isbedelaan waa inaad barato qaabka ula macaamilayso ilmaha caruurnimada uu ka baxay ama uu qaangaaray ama qaangaarkii ayuu kaabiga u saaran yahay waa inaad ogaataa ilmaha isbedel baa ku imanaya jirkiisii habdhaqankiisii isbedel baa ku imanaya waxaad ku arkaysaa ilmahaagii oo si fudud u cadhoonaya waxaad arkaysaa ilmahaagii oo sugnayn oo isbedbedelaya oo marba meel ka hilaacaya waxaad arkaysaa ilmihii ku soo korodhay caadifada jacaylku cabsi ay ku korodhay waxaad ku arkaysaa ilmihii isbedelada ku imanaya habdhaqankiisa waxa kamid ah ahlaamul yaqaba isagoo soo jeedo riyoonaya waxaad ku arkaysaa daal tira badan malal wax yar buu gacanta ku haya markaba waa isgalaya ilmihii waxaad ku arkaysaa dhaga adkaan alcinaad dabcan shardi ma had tilmaamahan wada sheegnay dhammaanba caruurtu inay wada maraan laakiin waa simaad qaaliba ama tilmaamo qaaliba weeyaan oo inta badan la arko markay marxaladda caruurtu marayaan isbedelada ilmaha ku imanaya markuu da'da aynu sheegayna uu soo gaadho waxa kamid ah habdhaqankii uu la dhaqmayay bulshada oo isbedelaya مثلا waxaad ku arkaysaa ilmahaagii ama ilmo badan lagu arkaa isagoo asxaabtiisa iyo dadka asaagiisa si indhala'aan u taageeraya oo u raacaya oo xiiseynaya oo dadka kale ka soo dhawaysanaya ilmuhu markuu xilliga joogo wuxuu doonay cid fahmaysa cid isfahmayaan
si awgeed waalid badan iyo carruurtu da'dan way isku xiiqaan ilmuhu markuu da'da soo gaadho wuxuu jecel yahay asxaabtiisa inuu la joogo xataa munaasabaad aan macno lahayn baa la samaysanayaa waxaana ay leeyihiin qolinka tarbawintu marxaladan duruufteeda ayay ka mid tahay haddii heli waayaan maxay samaynayaan waxay samaynayaan inay telefoon waqti dheer ku wada hadlaan waa la arkaa waalid badan oo carruurtiisa la yaaban oo ilmuhu arkay maanta oo telefoon haysta oo saaxiibkii u sheekeynay wax macno loo buran ay ka hadlayaan ma jiro waa inaad ogaataa marxalada wadata isbeddelka bulsho ee ku imanaya ilmuhu markuu marxaladan soo gaadho waxaa ka mid a wuxuu jecel yahay inuu shakhsiyaddiisa sugo inuu shakhsiyad leeyahay inuu jiro waxaanad ku arkaysaa waalidow ilmahaaga markuu marxaladan joogo isagoo kuu sheegaya inaanu carruur ahayn waxyaabo ku talaabsanaya waxaa ka mid a inuu sameeyo waxyaabo indhaha soo jeedinaya oo uu u jeedo waan madax bannaanay waxaan doonaan yeelayaa maryuhu xidhanayo qaabku timaha u jaranayo waxaad arkaysaa ilmihii aamusnaa ee dadkaan la hadli jirin oo marka dad waaweyn waa hadlayaan soo dhex gelaya oo niqaashkooda iyo doodooda ka qayb gelaya da'da markuu joogo ilmuhu suu u sugo bulsho ahaan inuu ka baxay carruurnimadii wuxuu jecel yahay muqaamaraadka ama waxyaabaha carinta ah inuu tijaabiyo tajaarib badanna uu galo xataa khatar hadday ku tahay waxaa ku badan ilmaha da'dan markuu marayo inuu xiiseeyo inuu guriga ka baxo inuu gooni u fadhiisto wuxuu jecel yahay in dhammaanba wixii bulsho ahaan markii hore uu raaci jiray markuu carruurta ahaa inuu ka tallaabsado tilmaamaha waxaan u sheegnaa waxay tahay in la fahmo marxaladan inay ka duwan tahay marxaladdii carruurnimadu una baahan tahay in usluubkeenu la dhaqmi jirnay markuu yaraa ama da'diisu intaan aanay ahayn usluub ka duwan in loola dhaqmo oo waxaad arkaysaa waalid badan oo ka odhanaya ilmihii waan afgaran lahay way maqli laayay waxaa loo baahan yahay usluubkii hore ula macaamili jirtay markuu yaraa ee da'dan aanu soo gaadhin inaad wax ka bedesho oo usluubka munaasibkeenu sheegi doono biidni illaahi tacaala aad kula macaamusho waxaana ugu muhiimsan qaacido ilmihii intuu dhinac walba kaa dhaafi lahaa cid kale gacanta ku dhigi lahayd aduu inaad gacanta ku dhigto oo ilmihii aad hanato inan iyo inanba wiil iyo gabadhba in gacanta lagu dhigo oo la hanto haddii adigu hanan weydo ilmahaagii waa lagaa qaadi doonaa ilmahaaga waxaa loo baahan inaad madaxda gaadhsiiso inuu ku jeclaado amarkaaga halhaleel u qaato laakiin maxaa ka horeeya arrimahan waa inaan ogaanaa markaan fariin dirayno markaan cid wax u sheegayno ciddaasi haddaynaan macaamil fiican la macaamilahayn way adkaanaysaa fariintaynu gudbinaynay inay qaataan marka qofku fariin buu gudbinayaa ilmihiisuu gaadhsiinayaa macaamil fiicanna la macaamili maayo ha ogaado macnaheedu waxay tahay fariinta ha qaadan marka fariintaada waa inaad u xidhaa gal wanaagsan oo qurux badan oo ilmuhu ku liqi karo oo qofkii aan ka eryahayn wixii loo sheegayay ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala isagoo nabiga la hadlaya calayhi salaatu wassalaam walow kunta faddan qaliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad nabi allow ahaan lahayd mid taagtaagan oo qallafsan way kaa kala dareeri lahaayeen waa nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam fariintii ilaahay buu sidaa waa afdalu lkhalqi ajmaciin intuu ilaahay aburo qofkii ugu qiimaha badnaa haddana waxaa leeyahay haddaanad dabacsanaan lahayn oo naxariista ilaahay kugu deeqay aanad ugu dabacsanaan lahayn ood ka kanaan lahayd waa lagaa kala didi lahaa marka waxaa leenahay waalidow ilmahaaga habdhaqankaaga ilaa aad saxdo aad kula macaamilayso fariintaad doonayso ma gaadhayso marka ugu horeyn waa in habdhaqankeenu kula macaamilaynay carruurta markay da'dan marayaan marxalat almuraahaqa waa inaynu saxnaa toosinaa
tallaabooyinkaaynu sheegi doonana la qaada insha allahu kulanka soo socda ayaynu ku faahfaahin doonaa biidni illaahi tacaala tallaabooyinkaasi waxay yihiin sidaa ay kulan damo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu rasuulkeennii mudnaye mowla keenay rasuulkeennii mudnaye mowla keenay makuu ku dhasho madiinana waa uu hijrooday واو اسبوعك في عايز صاحبي waad ka heshay sooma ما شاء الله صح ما عادش بسيط waxaan ku shubtay xidhmo furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa